waxay u baahan yihiin istimraariya iyo mumaarasa waxa la yidhaha waxay u baahan yihiin joogtayn maanta marka lagu wacdiyo waad saxnaananaysaa caawa marka gurigii tagta waxaad leedahay waxaad u baahan tahay inaad naftan geed ku xidho ilaahay ka baqatid aroorta si waaga dambe markuu bariyo wixiiba midhba kama xasuusinid marka waaga dambe bariyo walidaalika waa soomaalidu waxay yidhaahdaan wacdi iyo weydba habeen baa lagu seexdaa bay yidhahdeen iyagoo uga jeedan waa markaa hore ee laguu sheegayo uni wax dambe oo kasii dambeeya ma jiraan maxay naftu u baahan tahay markaasi waxay u baahan tahay in hoggaanka loo hayo oo la kobciyo waxay u baahan tahay in la barbaariyo waxay u baahan tahay in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo dhaqanka fiican oo lagu ilaaliyo akhlaaqda wanaagsan oo lagu ilaaliyo tawxiidka waxay u baahan tahay naftu la daahir yeelo laga daahir yeelo amraad alquluubi wanufuus xanuunada ku dhaca nafta in nafta laga ilaaliyo dulumaadkeeda iyo madmadowyadeeda in nafta laga ilaaliyo waxyaabaha tanjiisiye nijaaseeya in nafta laga ilaaliyo shahwaadka kuwa xisiga iyo kuwa macnawigaaba waxay u baahan tahay naftu in laga daahiro markaasi gaalnimo shirki riyaa nifaaq waxay u baahan tahay in laga daahir yeelo naftu magacdoon iyo maamustoon naftu xubu lburuuz inaad muuqato bini aadamku iska jecel yahay walow wacdina ku muuqo in waa hebel hebel lagu yidhaahdo aad soo baxdo naftu waa iska jeceshahay laakiin soo bixistu khayr ma leh waxa khayr leh qofku inuu mutawaadic yahay oo ilaahay ku xidhan yahay baa khayr leh idan nafta bini aadamka ahi shaytaanku hadduu kaa celin kari waayo khayrka wuxuu isku dayayaa khayrka inuu ku derdersiiyo adigoo khayrkii samaynaya haddana khayr bilaa ajara inuu kaa noqdo adigoo camalkiiba samaynaya inuu camalkaaga ka dhigo mid ikhlaas beelay ama mid magac iyo maamuus aad ku raadinaysay oo aan ilaahay agtiisa waxba aanad kaga helaynin bay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh aakhiro kuwa naarta loogu horshido maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa buu nebigu yidhi ku wax bixin badnaa waxaa ka mid ahaa buu nebigu yidhi ku qur-aan akhris badnaa waxaa ka mid ah buu nebigu yidhi maxay ku jihaad dagaal badnaayo geesi ahayoo jihaad ku dhintay saddexdaba naartaa lagu shidaa buu nebigu yidhi sababta markii nebiga la weydiiyeyna wuxuu tilmaamayay ka koowaad ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa qur-aankii aan ku baray maxaad ku samaysay ilaa habeen iyo maalinba waa anigii akhrinayay buu yidhaahdaa waxa alla uu ku yidhaahdaa waxaad tilahayd alla yidhahda hebel waa nin qur-aan akhris badan dayntiina waa tii dadku ku yidhaahdeen magacumaad ku doonaysa iyo maamuus iyo hebel nin ka tajwiid fiican ama ka qur-aan fiican ama heblaayo say qur-aanka u qaybsan tahay jaa'isad kasta iyadaa qaadata intaa umaad ka rabtay dayntiina lagu yidhi buu ayuu alla ku yidhahda subxaana wa tacaala aniga agtayda waxba kuma yaalin kii adduunka badnaa baa la yidhahdaa maxaa waxa uu yidhaahdaa ilaah waanigii bixiyey wixii aad nimcay siisay waxaa lagu yidhaahdaa waxaad u bixinaysay waxay ahayduun in la yidhahdo ninkaa hebel waa deeqsi hebel gacantiisu waa nin faxala oo gacantiisu kala baxsan tahay dayntiina lagu yidhi baa la yidhahda ilaah agtiisa waxba kuma lihid kii kale jihaadka ku dhintay waxaa la yidhahdaa waxaad u diriraysay uun in la yidhahdo ninkaa hebel waa geesi xaggu kaa xiga lagaaga soo dhici maayo dayntiina lagu yidhi baa la yidhahdaa idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku derdersiiyo ku dhinac marsiiyo oo wixii ammaanta ahaa ee ilaahay agtiisa wax lagaga helaya waxaan ahayn inuu waxaagii ka dhigo idan waxaynu u baahanay nafta inaynu ilaalino inaad naftu way sankay taagaysaa iyo madaxaad hoos u celiso ilaahay mutawaadic ilaahay aad u dhul dhigto walaalada aanay ka san taagin aad hoos u celiso magac iyo maamuustoona aanay doonin aad u diiddo naftu xuduudi nafs alanaaniya anaadu way tiro badan tahaye inaad anaa oo dhan ka joojiso wax allaale iyo waxa ay naftu rabto ee ay kugu qasbayso o dhan inaad u diidid idan naftu waxa ay doonaysaa way tiro badantay meesha ay ku socotaana waa mahlaka waa dhul khatara waxaa loo baahan yahay naftan hoggaanka loo xejiyo inaad xaasidnimada ka ilaaliso oo bakhaylnimada ka ilaalisid oo isla weynida ka ilaalisid oo inay naftaadu ku cajab geliso aad ka ilaalisid oo adduun jacaylka aad ka dhowrtid oo hawo jacaylka aad ka dhowrtid ilaahay wuxuu tilmaamayay qoladii jannada gelaysay maxaa la yidhi faama man khaafa maqaama rabbi wanaha annafsa can alhawa maxaa ilaahay tilmaamay faina aljannata hiya alma'wa janna haddaad doonayso waxay ku xidhan tahay wanaha annafsa can alhawa waxay doontaba inaad diiddo albusari gabaygiisii muxuu ku sheegayay wakhaalif الnafsa wالshayطaana wacsihima war naf iyo shayطaan weligaa caasi buu lahaa oo hadday isku kaadayaan buu yidhi wain humaa maxadaaka nusxa fattahimi xataa hadday kuu
هذا الشيطان ينفسك هذا يكون نصيحيان نصيحة له حتى كشكي بيدي وحكسوا قالوا إنه ما الخطر بقوة ضانه إذا وحى هبون إن نفتح كحكم يسوي واحد دون طورنا إنني كاهل واحد دون طورنا هذا يكاهشوا شبطي نفتح حيوبا هنتين للرب يلغوا الرب التوحيد كإلهي يا إلهي سبحانه وتعالى أسماء الله الحسنى أين تقدر نصته توحيدك كل ربينتي سمحكم إذا وحكم إذا إن ترميستي إلهي نكليه وحكم إذا إن ترميستي إلهي قعنتي سيني وحولي بكتشران هذا ترميستي إلهي قعنتي سيني وحولي بكتشران وحد الله تبيسك ما دويدينيس هذا ترميستي إلهي قعنتي سيني وحولي بكتشران وحد الله تبيسك ما دويدينيس